السلام عليكم كل وعنا أصحابي كسو دوادا قلن كمانتا إيا موقع عصوب فضلا هديا نقو عصوب تاي جنالك سبسكرايب سار سينا شرقري لايك تاكي لاوين سيدي رجلين نوغو نقطو مع السندين موقع كينا مانتا أصحابي وحانك قال دونا دمان معلومات يكو صابسان هردع كوبات جسك لبادا فيلم كارلوس عثمان سيدو كلاو حانك جوابي دونا سؤالها Erdogan Gazi ma waxa uu imaan doonaa dagaalka Finland mise marka uu dhamaado dagaalka maxaa natiijo oo ka soo baxaya dagaalka yaas ay wax gaari doonaan sidoo kale waxa ay soo bandhigi doonaa dagaalka ma waxa uu ku eegyahay qabiilka mise suuqa cusub macluumaadyo intan in ka badan waxa ay kugu soo gudbin doonaa muuqaalka maanta fadlan nala dhameyso ugu horeyn hordhaca waxa uu ku bilowday Cusmaan iyo asxaabtiisa u socda la kulanka hogaamiyaha jameecada Al-Baydaa waxaana hogaamiyahu u sheegay talaabooyinka ugu muhiimsan ee la doonayo in la qaado waxa ugu muhiimsan in jameecada Al-Baydaa ay qaadatay go'aan ah in la aas-aaso dawlad cusub waxaana Cusmaan loo sheegay inuu isaga hogaamin doono dawladdaas weyn intaa kadib waxaa soo muuqday hogaamiyaha qalcadda ayaa Nicola waxaana ay dejiyeen qorshe dagaal Fasilinius iyo Caladinius waxayna ahaan doonaan laba gacan hogaamiyaha qalcadda ayaa Nicola waxaa sidoo kale muuqaalka ka soo muuqday weerar lagu qaaday qabiilka xilli ay aas-aasayeen suuq cusub sidoo kale waxaa laga yaabaa in qabiilka ay dhisayaan si ay u soo degaan qabiilka Salajan waxaana weerarka lagu dhex arkay Hazal Khartoum oo badbaadinaysa qaar ka mid ah dadka qabiilka iyo Damrool isaga oo seeftiisa wata kadib markuu dhacay dagaalka oo lagu guuleystay waxa ay bilaabeen si ay suuq ugu faafiyaan sun iyo daacuun waxaana ciidamada ayaa Nicola ay imaadeen suuq taabaxsan qalcadooda isla muuqaalka waxaa ka soo muuqday dad lagu soo qafaashay dagaalka loona wado qalcadda weerar iyo gubis kadib waxa ay saameyn doontaa dhammaan qulubta qabiilka intaa kadib waxaa soo muuqday Erdogan Gazi waxaana loo badinayaa inuu imaan doono dagaalka kadib xilli uu Cusmaan u qudbeenayay ciidanka iyo shacabka qabiilka si ay uga jawaabaan dagaalka lagu soo qaaday waxaana la bilaabay in dagaal isku diyaariyo waxaa intaas sii dheer waxaana inta seef diyaarinta lagu guda jiray soo muuqday shakhsi aad ugu eg jilaagii hore ee Idris Erdogan ninka lagu magacaabo Daldamir laakiin sida muuqata waa birtamo cusub mar kale aan ku naqano dagaalka isdiyaarin dagaal kadib qabiilku waxa ay soo aabeen dagaal yar iyo weynna looma kala harin sida muuqaalka laga dheehanayo dagaalka waxa uu ahaa mid aad u adag sida ay asxaabtu u moodeen waxa ma dhicin bilcagsi waxaa guuleystay Cusmaan iyo dagaalamayaashiisa macluumaadyo intan in ka badan waxa idin kugu soo gudbin doonaa muuqaalka xiga waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan fadlan daa nagu cusub tahay subscribe saar channelkeena siina share garay like ta ka ilaawin si dhiirigelin ugu noqoto mahadsanidin